waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir u socday wasiirada batroolka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana shirkaasi ka soo baxay warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada batroolka dowlad goboleedyada iyo wasiirka batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Warmurtiyeedkaas ayaa saxaafadda waxa uu akhriyay wasiirka batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Shire. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqdisho 5 Janaayo 2026 wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha batroolka iyo macdanta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya hay'adda batroolka Soomaaliyeed ayaa waxa magaalada Muqdisho uga soo gabagaboobay shir socday muddo 3 maalmood ah shirka oo diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta u dhaxaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed aqalka sare guddiga hoosaadka khayraadka ayaa lagu martiqaaday goobjoogna ka ahaa shirkan 3 casho socday kasakow waxyaabihii aan wadaagnay ee noo soo qabsamay iyo waxa qorshuhu yahay waxa shirka la iskula afgartay qodobo dhowr ah oo muhiim ah haddii aan wax ka sheegana kow usuduwadda iyo wada shaqaynta shirku wuxuu isla qaatay in la xoojiyo iskaashiga u dhaxeeya wasaaradaha batroolka iyo macdanta ee heer federaal iyo dowlad goboleed si loo helo go'aan qaadasho midaysan iyo fulin hufan. labo hirgelinta shuruucaha iyo siyaasadaha in si wada jir ah loo dhaqangeliyo shuruucda xeer hooseedyada iyo siyaasadaha qaran ee batroolka iyo macdanta iyada oo la ilaalinayo dastuurka iyo heshiiska jira. 3 daafurnaanta iyo maareynta xogaha in la mideeyo nidaamyada maareynta xogta lana hubiyo daafurnaanta iyo isla xisaabtan dhan walba ah. 4 dhisidda awoodda iyo tababarka shirka waxaa la iskula qaatay in la xoojiyo tababarka iyo kobcinta xirfadaha shaqaalaha wasaaradaha heer dowlad goboleed iyo heer federaal isla markaana la dhiso garaadkooda aqoontoodana sare loo qaado. 5 deegaanka iyo bey'ada badqabka shaqaalaha in la adkeeyo ilaalinta deegaanka badqabka shaqaalaha iyo bulshada si guud lana raaco xeerarka caalamiga ah ee u yaala wax soo saarka khayraadka dabiiciga oo batroolku u horeeyo iyo macdanta kale. 6 dhinacyadu waxa ay si wada jir ah u cadeynayaan in khayraadka batroolka iyo macdanta dalku yahay hanti qaran ayna tahay in lagu maareeyo si ka madax bannaan isqabqabsi siyaasadeed loona adeegsado dan guud oo midaysan. 7 waxaa la isku raacay in ka faa'iidaysiga khayraadku uu noqdo mid ku dhisan hufnaan isla xisaabtan iyo sharciyad isla markaana horseeda horumar waara kobciyo dhaqaalaha qaranka abuuro fursado shaqo oo joogto ah gaar ahaan dhalinyarada iyo xirfadlayaasha Soomaaliyeed si ay si toos ah uga faa'iidaystaan khayraadka dalkooda. mahadcelin shirku wuxuu u mahadceliyay ama ka qaybgalayaasha shirku waxay si gaar ah ugu mahadceliyeen wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya doorkii hogaamineed ee ay ka qaadatay martiqaadinta shirkan diyaargarowgiisa iyo wada shaqaynta dhow ee ay la yeelatay dhammaan dhinacyada ka qaybgalay. waxaa la amaanay dadaalada wasaaraddu ku bixisay abuurista jawi wada tashi isfahan iyo kalsooni ku dhisan kuwaas oo u horseeday natiijooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan horumarinta khayraadka batroolka iyo macdanta. sidoo kale waxaa la amaanay wada shaqaynta dhow ee ay wasaaraddu la yeelatay guddiyada heer baarlamaan iyo heer aqal sare ee ah guddi hoosaadyada khayraadka. sidoo kale shirka wuxuu amaanay kaalinta muuqata ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka qaatay horumarinta khayraadka dalka uu u horeeyo shidaalku ka oo uu u istaagay inuu hubiyo Soomaaliya inay la soo baxdo khayraadkeeda. gunaanad dhammaan dhinacyadu waxay adkeynayaan go'aanada ay ka qaateen wada shaqaynta joogtada ah ilaalinta midnimada iyo danaha qaranka iyo horumarinta khayraadka batroolka iyo macdanta si waafaqsan sharciga iyo habraacyada caalamiga ah. waxaa la isku raacay in shirkan wada tashiga ah la sii joogteeyo si loo qiimeeyo waxqabadka lagana gudbo wax kasta oo caqabada oo iman karo. waad mahadsantihiin.